tan iyo markii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha degmada Warshiiq ayaa siyaabo kala duwan arrinkaas waxa uu ka hadlay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Warshiiq. Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Warshiiq oo ka mid ah culimo diinka degmadaasi isla markaana hore u soo noqday gudoomiyaha degmada Warshiiq ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed ay kaga cabanayaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare. war saxaafadeedka ayaa u qornaa sida tan ku socota madaxweynaha maamulka Hirshabelle og madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle og madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya og xeeralaaliyaha guud ee qaranka og gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ujeedo ku xadgudub dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya anigoo ah Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Warshiiq kan mid ah hogaamiyada Warshiiq waxa been abuur iyo xadgudub inoo geystay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markii uu soo saaray warqad uu ku dhameystirayo golaha deegaanka ee degmada Warshiiq. warqadaasina ayaa ku taariikhneysneed kowda bisha 6 sanada 2019 sumadeedna taasina ayaa lagu sheegay qoraalkeeda inuu yahay mid isburinayo sida uu leeyahay maamulka xilka baneeyay iyo kan la magacaabay waxa ayna ka qayb qaadanayaan dhisida golaha deegaanka oo ay sharci darro tahay waxaana si sharci ah iska leh dhismaha golaha deegaanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle. madaxweynaha Hirshabelle waxa uu gudoomiyaha degmada Warshiiq u soo magacaabay si ku meel gaar ah Axmed Xuseen Axmed Shiidka mas'uulka ah soo horay dacwad ugu tiilay xafiisyada kala ah xafiiska xeeralaaliyaha guud ee qaranka sida ku cad warqada ku taariikhaysan 18 bisha 2 sanada 2017 yeeritaan xafiiska xeeralaaliyaha guud ee qaranka si wax loogu weydiiyo weerarkii uu ku qaaday masjidka Sheekh Cabdi taariikhdu markay ahayd 22 bisha 9 sanadii 2018 aynu ka soo gudubnay waxaan hogaaminayay ciidanka kabtan Maxamed Xuseen Maxamed Malaaq baaris dheer kadib markii ay soo cadaatay dambigii waxa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Warshiiq ee iminka la soo magacaabay taariikhdu markay ahayd 26 bisha 9 sanadii 2018 iyo xafiiska xeeralaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ku cad warqada ay ku taariikhaysan tahay 18 bisha 10 sanada 2018 u yeeris xafiiska xeeralaaliyaha iyo maxkamadda sare. haddaba madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu qalalaaso ka dhex wadaa beelaha degmada Warshiiq taasoo keenaysa baa lagu yiri xasilooni daro ka dhex waranta dadka ku nool degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweynaha Hirshabelle waxa uu ku xadgudbay baa la yiri dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobka 33 ee go'aanka maamul cadaalad ah qodobka 42 ee waajibka muwaadinka farqadiisa A B iyo C qodobka 4 ee sareynta dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dastuurka ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Hirshabelle qodobka 27 waajibka muwaadinka farqadiisa 1 iyo 2 qodobka 6 sareynta sharciga fiiro gaar ah hay'adaha garsoorka iyo mas'uuliyiinta qaranka waxaan ka rajaynaynaa in ay arintan wax ka qabtaan iyadoo la ilaalinayo dastuurka qaranka Soomaaliya. mahadsanidin. war saxaafadeedkan ka soo baxay Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare uu gudoomiye u magacaabay Axmed Xuseen Axmed Shiidka. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalson Jowhar.